ereyga galaxy waxa laga soo xigtay afka Giriiga wuxuuna af Soomaali ku noqonayaa diilin caanood ama wada caanood. Diilin caanoodu waa higil aad u baaxad weyn waana hab uu isku xiro cufis jiidadku oo ka kooban xidigo. diilin caanoodku waxa uu ka kooban yahay waxyaabo badan waxaana kamid ah haraaxidigeedyada ama stellar remnants, meerayaal, dhadhaabyo ama asteroids, dhagaxaanta seynta leh oo la yiraahdo comets, dhexyaalo ama interstellaris oo iyaguna ka kooban neefo, boor, fallaare iftiimeed, hogag madow iyo walaxaha madow ama dark matter-ka loo yaqaan. dark matter-ku waa wax aan cilmi ahaan aan wali si fiican loo fahmin laakiin door weyn ku leh jiritaanka unka. waxa kamid ah sababaha soo jiida xubnaha diilin caanooda hogaga madow ama black holeska oo aad iyo aad u cufuf waaweyn oo ku yaala bartamaha higalka weyn ee diilin caanoodka oo loo soo gaabiyo SMBH supermassive black holes. موضوع ku saabsan black holeska horaan kaga hadalnay hadii aad u baahan tahay xagga hoose ayaan soo dhigay ee soo daawo. diilin caanoodku wuxuu 4 milyan oo jeer ka cuf badan yahay hogii madowba cufka qoraxdeena. diilin caanoodyada koonku waa ilaa 100 milyan qaar baan cilina tan dhulkeena uu ka tirsan yahay hadii la doono in laga dhex safro waxa ay qaadanaysaa ilaa 100,000 oo sano oo ku salaysan cabirka iftiinka. xidigyahanadu marka ay cirka wax ka cabirayaan waxa ay halbeega cabirka ka dhigtaan xawliga iftiinka oo dhan 300,000 oo kiiloomitir ilbiriqsigii ama 186,000 oo mayl ilbiriqsigii. xagga dheereynta marka ay noqotana koonka oo dhan ma jiro wax ka dheereeya iftiinka ama ilayska sida ay sheegeen urur-xidigoodka caalamiga ah ee IAU. hal sano iftiimeed waxa ay la mid tahay 6 trilyan oo mayl ama qiyaas ka hooseysa 10 trilyan oo kiiloomitir. si aad u fahantid tusaale hadii aan soo qaadano diilin caanoodeena ama majaradeena haddaan ka masayno magaalo weyn oo ka kooban xaafado iyo magaalo hoose ama downtown waxay qaybta habqoraxeedka ee aan ka tirsanahay noqonaysaa qayb aad u yar oo magaaladaasi ka tirsan oo aan xitaa xaafad dhamayn. marka si kale loo yiraahdana waxaan noqonaynaa barbar yar oo ku taal higilkaas weyn ee aan hadda ugu yeernay diilin caanood. sida magaalada u nolol badan tahay oo kale ayaa diilin caanooduna u nolol badan tahay, isla markaana sida bartamaha magaalada u nolol badan tahay buu bartamaha diilin caanooduna u nolol badan yahay ama u xidiga badan yahay. waxaa la rumaysan yahay in diilin caanoodeenu qaab ahaan ay tahay mid galoolan ama spiral galaxy. ma jirto cid awooday inay banaanka uga baxdo diilin caanoodka kadibna dib u soo fiirisay oo sawirtay, laakiin waxaa laga qiyaas qaatay diilin caanoodyada kale ee aan keenna ahayn ee la arki karo, waxaana sidaasi loo mala awaalay inteenu ay galoolan tahay halka kuwa kale ay leeyihiin humaagyo qaabab kale leh. inkastoo aan laga gayoon karin haddana diilin caanoodyo aan badnayn baa magacyo loo bixiyey sida diilin caanoodka Andromeda, diilin caanoodka daruuraha Magellan ama Magellanic Clouds, Whirlpool Galaxy, diilin caanoodka garangarsan ama Ringi Galaxy iyo Lenticular Galaxy. diilin caanoodyadan oo ah kuwa ugu caansan inkastoo ay aad u badan yihiin waxa qaab ahaan loo qaybshaa 3 jaad, kuwa qaab ukumeed leh oo la yiraahdo elliptical, kuwa galoolan oo la yiraahdo spiralis iyo qaablaawayaal kuwa ah oo la yiraahdo irregulars. waxa jira diilin caanoodyo loogu yeero xilino ama dwarfs, waxa ayna mug ahaan ka yar yihiin kuwa weyn qiyaas dhan 100 meelood meel, waxa ayna ka kooban yihiin dhowr bilyan oo xidigood. waxa dhacda in diilin caanoodyada cilinada ah ama gaagaabane ay ku ag wareegaan kuwa waaweyn ee ka muuqa weyn. way isla falgalaan diilin caanoodyadu wuxuuna falgalku dhalan rag ku sameeyaa lafsad ahaantooda. isduqayntu waxa ay dhacdaa marka laba diilin caanood ay si toos ah isugu dhacaan haddii aysan lahayn awood ku filan inay israacaan.
xidigaha diilin-caanoodani way isdhaafaan iyagoon isduqayn, laakiin neerfaha iyo boorka labada diilin-caanood baa isdhex gala. Arrintan dambe ayaa waxa ay keentaa in xidiga dhashaan. Haddii ay isduqayn toos ahayna dhacdo oo ay isdhaafi kari waayaan, waxaa dhici karta in humaagyada diilin-caanoodyadu wax iska beddelaan. Markan ay diilin-caanoodyadii iska hor yimid tahli waayaan inay isdhaafaan, way midoobaan waxa ayna noqdaan hal diilin-caanood oo aad iyo aad u weyn. Xilligan la joogo, xidiguhu waxa ay ka dhex dhashaan diilin-caanoodyada yaryar. diilin-caanoodyada galoolan kaliya waxa ay soo saaraan dac cusub oo xidigo ah, maadaama ay ku leeyihiin fadad daruuro ah oo cufan oo hydrogen ah gacmahooda galoolan. diilin-caanoodyada qaabka ukunta ahna leh kama dhex dhashaan xidigo cusub, waayo waxaa ka marta ama ka le'day neefta xidigaha dhinta. marka xidigta shidaalkeedii hydrogenka ahaa u rogto walxa culculus waa ay joogsataa. habka xidiguhu u samaysmaan waxaa la filayaa inuu sii socdo ilaa 100 bilyan oo sano, waxaana markaas kadib soo yaraanaya cimrigii xidigaha iyaga oo soo jiray 10 trilyan ilaa 100 trilyan oo sano. waxaa markaasi bilaabmaya in xidigihii ugu yaryaraa ee ugu cimriga dheeraa ee hawadeennu ay damaan ama ay qarsoomaan, kuwaasoo ah cilinada cascas ama xidigaha aadka u yaryar ee guduudan. marka la gaaro dhammaadka cimriga xidigaha, diilin-caanoodyadu waxa ay noqonayaan walxa isku dhafan oo ka kooban waxyaalaha ay ka mid yihiin cilinno midab ciideed, cilinno cadcad oo qaboobaya ama qaboobayba, cilinno madmadow, xidiga niyutroon ah, iyo sidoo kale hogag madmadow. waxaana markaasi dhici doonta in dhammaan xidigaha oo dhan ku hoobtaan hogag madmadow oo cufuf waaweyn leh, sidaas awgeedna lagu soo wada aruuro hoggaas.